waraxmatullaahi wabarakaatuhu. walaal kusoo dhawow youtube-kayga. haddii aad ku cusub tahay waxaan ka codsanayaa subscribe, like, comment and share. waxaan rajeynayaa inaad si wacan ii dhiirigeliso wixii fikirkaaga ku saabsanna. waxaan rajeynayaa inaad ii dhigto commentiga. haddii ay wax iga khaldan yihiin waad iga sixi kartaan. haddii aan saxanahayn waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidaysataan. qolada kale ila joogtay waxaan ayagana ka codsanayaa inay like ii saaraan. waxaa inoo socdo barashada cashirka ama luqadda Turkiga. waxaan rabnaa inaan ka hadalno cashirka labaad ee luqadda Turkiga barashadiisa. haddaba sidee ugu hadli rabnaa? sida soo socotaan ugu hadli rabnaa waa barashada luqadda Turkiga iska tiyo cashirka labaad. waxaan ka hadli doonaa taariikhda alfabeetka luqadda Turkiga. waxaa idingeliyay qoray macallin ahaanna usoo jeedinaya Ismaaciil Maxamed Cumar oo aniga in la hadlayo. haddii aad dooneysaan inaad ila xiriirtaan waxaad igala soo xiriiri kartaan gmail-kaas. waxaan hadda inoo bilaabanayo cashirkeenii oo aan bilaaban doonaa. waxaan hadal kooban ka diyaariyey qodobkan rabo inaan idin dhaho xarfaha afka Turkiga. inta aan u hordhicin waan idin salaamay dhammaan asxaabta ku xiran youtube-kayga. waxaan idinka codsanayaa subscribe, like, comment and share si aan usoo dhigo koorso dhammaystiran oo ah luqadda Turkiga. next courses haddii aan dhammaysano koorsooyinka kale ku xigo maxaa la dhahaa luqadda Turkiga waxay noqon doonaan afka Talyaaniga iyo afka Faransiiska. waxaan ku dhahayaa la socod wanaagsan, ka faa'iidayso, waa free. waxaan soo qaadanay video ku saabsan cashirka koowaad ee luqadda Turkiga. waxaan ka soo hadalnay alfabeetka. waxaan rabnaa hadda inaan ka hadalno haddaba waxaan soo sheegnay in luqadda Turkigu ay alfabeet leedahay. kamaanan hadlin alfabeetka taariikhda dheer ay soo martay iyo sida loo soo diyaariyey. hadda waxaan rabnaa inaan waa muhiim inaad ogaato alfabeetka taariikhda lagu soo diyaariyey iyo ninkii qayb weyn ka ahaa in la diyaariyo. haddaba waxaa inoo bilowday barnaamijkeena diyaar garow wacan. xarfaha afka Turkiga waa Latin sidaad la socotid. waxa ay ka kooban yihiin 29 xarfo. 7 ka mid ah oo loo aqriyay sida tan soo socoto j. haddaba luqadda Turkiga waxaa ku jirta 2 j. mid wax alif gaab la dhahayo hoos ka saaran oo ku dhagan ja'da. anaga afka Soomaaliga waxay noo tahay a ayay noo tahay. caada hoosteeda waxaa ku dhagan wax alif gaab oo kale. midaas waxaa la dhahaa j oo markii aan rabno inaan wax shidno waxaa lagu dhajiyaa carabka. marka ja'da kale waxaa carabkaad u khafiifinaysaa sida ay ku kala duwan yihiin ku sheegaya. j tan carabka lagu adkeynaya, tan kale laakiin carabkaad u khafiifinaysaa. xarafkan kale waa yumashage. waan ka hadli doonaa isna si gaar. yumashaga la dhahaa. halka 2 kaloo xaraf oo loo maleeyo inay isku eg yihiin qoraal ahaan. midna waa capital midna waa small letters. unlu iyo unsus ee dhahan ayaga luqadda Turkiga ahaan. laakiin waxaan dhahnaa xarfaha waaweyn iyo xarfaha yaryarka. marka xarfaha yaryarka aan dhahay shaqal iyo shibano labadooda waa shaqal laakiin weyn iyo yar ay kala yihiin. laakiin sidees loogu kala dhawaaqaa? midda weyn waxaa loogu dhawaaqaa i, halka midda kale shaqalan loogu dhawaaqayo waxaa loogu dhawaaqayaa ilkaha isku dhajinaysaa, carabkaaga kor ku dhajinaysaa, kadib waxaad ku dhawaaqaysaa i. maxay noqonaysaa idaas? marka waxay noqonaysaa sida tan soo socoto adaysaa okay. midda ku xigto waa o laakiin o looguma dhawaaqo. waxaa loogu dhawaaqayaa loogu dhawaaqayaa waa carabka waxaa isku dhajinaysaa ilkii, carabkaaga kor ku dhajinaysaa. sida fudud ee lagu dhawaaqo waa sidaas. ilkaha markaad isku dhajiso carabkaagana kor gees waxaa ku dhawaaqaysaa o. waxay noqonaysaa dhawaaqa saxda ah ee shaqalka saaran. haddaba sida tan soo socoto waa saas midda kalena waa sidaas oo kale samaynaysaa. waxa ay cadeynayaan in xarfaha luqadda Turkiga ay gaar u tahay. yacni 7 xarfo waxa ay cadeynayaan in luqadda Turkiga ay gaar u tahay luqad kale aysan ku jirin. halka 22 xarfa kale
soo qaadan yani laga soo qaatay dhowr luqado. 7 xarfo aan kasoo hadalnay waxaa dib u habeen lagu sameeyey dhanka dhawaaqista ama pronunciationka. waxaa diiwaanka lagu soo daray sanadka markuu ahaa 1928 iyada oo markaa ka mid ahayd Ataturk reforms. Mustafa Kemal Ataturk waa halgamaa dhalay. marka halgamaagaas waxa uu qaaweyn ama reform yani dib u haweyn ku sameeyey old Turkish language waxa la dhihi jiray ama waxa la dhihi jiray Turkic la dhihi jiray language waxa aad old wuxuu dib u qaaweyn ku sameeyey alphabetku dib qaaweyn u sameeyey sanadka markuu ahaa 1928 iyada oo markaa ka mid ahayd Ataturk reforms waana mid hadda la isticmaalo oo ah officialku waxaa dadka u gaarka ah. taariikhda hore oo afka Turkiga loogu yaqaano Erken Tarih waxaa loo oran jiray Turkic alphabet injida waa sida hadda aan kusoo dhawaaqay waxa ayna ka mid ahayd Orkan script wax la hayo. waxaa kaloo loo yaqaanaa Old Turkish alphabet si guud markii ugu horeysay ee la isticmaalay waxa ay ahayd qarnigii 7aad. Turkic language ama luqadda Turkiga oo waagi hore saas la oran jiray waxa ay ka koobnayd dhowr luqado oo kala ah Uyghur, Cyrillic, Arabic, Greek, Latin iyo luqado kale oo Aasiyan ah. waxa ayna iskaga mid ka yihiin dhanka qoraalka. luqadda Turkiga oo ahaan jirtay qaab Carabi in ka badan kun sano in ka badan waxay ahaan jirtay qaab Carabi in loo qoro. maxaa dhacay kadib waxaa marka la oran jiray markaas qaabka Carabiga loo qoran jiray waxaa la oran jiray Ottoman Turkish. waxaad maqashaan Ottoman Empire sidaan aniga ka warhayo laakiin Ottoman-kan markuu jiray luqadda Turkiga qaab Carabi ahaan loo qaadan jiray taas oo garab weyn ka heshay erayo Carabiga iyo Persianka ah. si kastaba ha ahaato qayb ka mid ah ereyadaasi si weyn looma isticmaalo si weyn looma isticmaali jirin xiligaas. qayb ka mid yani Carabiga iyo Persianka qaab ka mid si weyn looguma isticmaali jirin halka Carabiga oo aad ugu badan yahay dhanka shibanaha consonants unsus markaad rabto inaad ku dhawaaqdo waa inaad ilkahaaga isku xirtaa carabkaaga korkiisa kadib ku dhawaaqo sababtoo waxa ku jirto wax la ku jirto oo shaqalan sidaas ugu dhawaaqaysa. laakiin shaqalaha vowelska ama unluga la dhahaa afka Turkiga vowelsna waxa la Englishka ay aad ugu yar yihiin. waxaad fahanteen haddaba in luqadda Turkiga afka Carabiga dhanka consonantska ama shibanaha ama unsuska ay aad ugu badan yihiin laakiin vowels ahaan markii la dhaho ama shaqalo ama unluga markii la dhaho in ay ku yar yihiin. 29 xarfaha Turkiga waxaa soo horumariyay ama ka shaqeeyay shakhsiga magaciisu yahay Mustafa Kemal Ataturk. waxa uu bedelay xarfaha luqadda Turkiga dhanka qoraal taas oo uu sababtay in aadaanka salaada uu ka dhigo luqadda Turkiga. waxaa la arkay in markuu si weyn xamaasad ay u qaadayo arkay in luqadiisa ay si u bedelan tahay maadaama uu Turki yahay haddana si Carabi la jaan qaadayo markaas uu soo dayay inuu isaga samaysto alphabet ama xarfo u gaar ah. wuu try gareeyay wuuna success gareeyay. markuu guuleystay waxa uu sameeyay inuu ku dhawaaqo aadaanka salaada in uu ka dhigo afka Turkiga. meesha aan ka dhahno anaga Allahu Akbar ayaga waxay dhihi jireen Allah buyuk saasay dhihi jireen ilaaha weyn. waa ka mid anagoo afka Soomaaliga ku aadanay oo kale sidaasay ahayd. marka xiligaas waliba waxaa la sheegay dugsiyada Qur'aanka xitaa in kitaabku uusan Carabi ku qorneen oo ku qornaa luqadda Turkiga. waxa uu ku dhawaaqay qorshahan 1928 waxa uu hirgeliyay luqadda salkeedana fariisiyay micnuhu toosiyay habeeyay
oo ilaa hadda la isticmaalo inkastoo hadda aadaanka salaada uu yahay afka carbeed ee luqadda carabiga. hadda waa Urdugana bedelay oo markuu ra'iisul wasaare xili hore uu ka ahaa ayuu bedelay iyo qolo kale oo ka horeysay bedeshay. laakiin si weyn waxa hadda dhanka diinta Turkiga aad u weyn wax ka qabtay Urdugan. raggii la waday hawsha la hirgeliyay waxaa kamid ah, waxaa iskaliisu ma wadin hawsha, ragaa la waday. raggaasna waxaa kamid ah sida hadda ragga soo socdo waxaa lahaa Ragib Hulusi Ozdin, Ibrahim Garantay, Ahmed Jefit Imre, Iman Ershirgin, Ehsan Sungu, Avne Bashman, Falih Rifki Atay, Rushen Eshraf Unaydin, Yakub Katri Kara Usman Olu. dadkaas waaye waa 9 sidaan filayo. waxa ay sameeyeen luqad hab hadalkeeda toosan, waxa ay si rasmi ah ugu mid dhigeen Latin, waxa ayna hirgeliyeen Yeni Turkish alphabet waxa la hayo ama New Turkish alphabet, xarfo cusub waa Yeni Turkish alphabet. Ataturk markiisii ugu horeysay waxa uu dadka baray xarfaha cusub 20 September 1928 magaalada Kayseri ka bilaabay. waa magaalo ku taala dalka Turkiga, waxaana rajaynayaa magaalada afraad ee dalka Turkiga ugu caansan inay tahay hadda, sababtoo waxa ka weyn Ankara, Istanbul iyo Izmir ka weyn. Kayseri sidaan filayo magaalo inkastoo ay Anadol horey yani caan ay u ahayd. waxa uu wadanka uu bedelay nidaam cusub oo dhanka qoraalka xarfaha ah. nidaam cusub uu bedelay wadanka oo dhanka qoraalka xarfaha ah 1 December 1928 waxa bilaabmay in jaraa'idyada joornaalada macnaha xayeysiineed lagu soo daabacay xarfaha cusub ee luqadda Turkiga. waxa 1 Janaayo 1929 qasab ku noqotay xukuumadda iyo dadweynaha si guud inay qaataan lana daawacay buugaag ku baxaya xarfihii cusba ee Ataturk sameeyay dalka oo idil. waxa ka dhaqan yani xiliga ay ka dhaqan gashay dalko idil ay qaateen Ataturk xarfaha uu sameeyay 1934. waxa meeshaas ka muuqata 5 sano inuu ka howlgalay oo 5 sano si weyn ugu howlgalay. haddaba waxaan soo sheegnay in xarfaha luqadda Turkiga faahfaahin ka soo bixinay heerka ay soo martay sida loo soo diyaariyay. waxaan hadda inkastoo video hordhac aan soo sameeyay oo aan ka soo hadlay, haddana waxaan rabnaa inaan ka hadalno waa the letter of the Turkish. no English not important, ma ahan English important, hadda ma rabno wax English aan baran ma ahan. Turkish alphabet haraflar waa maxaa la dhahaa xarfaha afka Turkiga. maxaa jira marka Soomaali ahaan markii la joogo xarfo waaweyn iyo xarfo yar yar jira. Ingiriiska uu dhaho capital letters iyo low cases letter. halka Turkiga uu dhahayo buyuk haraflar ama buyuk haraf. buyuk harafka maxaa marka waa xarfaha waaweyn, waa sida tanaan loo akhriyaa a b j j d e f g yumuşak g h I Ö C K L M N O Ö B R S Ş T U Ö V Y Z. halka lower caseska ama küçük harflarka ama xarfaha yar yar sida tan oo kale loo akhriyaa lagubis. xarfaha weyn xarfaha yar usaas un bay kala duwan sida hadoo kale aan usoo akhriyo unba loo akhrinayaa. waqtiga iskagama sii dhuminayno. xarfaha luqadda Turkiga waa 29 xarfood. 8 waa shaqalo oo waxa ay kamid tahay 8 shaqalo waa kuwan waa a e I ö o u 21 kalena waa shibane. xarfaha kha wa iyo ha anaga aan dhahno, halka Ingiriiskana uu dhaho q w x. kuma jiraan Latin alphabet iyo kuwa Turkiga kuma jiraan.
waxaase marka aad rabtid inaad yani isticmaasho xarfahaas oo kale ku dhawaaqi yani ugu dhawaaqi kartaa sida q-ga markaad rabtid waxaa ugu dhawaaqi kartaa k-da, w markaad rabtid waxaa ugu dhawaaqi kartaa v-da, markii x-ka aad rabtid c-da ugu dhawaaqi kartaa ama k-da ugu dhawaaqi kartaa. xarfuhu waa carabiga hore iyo Persian waaye uu ku yiri xarfaha. halka xarafka aan kasoo hadalnay sida gaarka ah yumushage Allah waxaa loo akhriyaa waa kana yumushage loo akhriyaa waa yumushage aragtaa yumushaga loo akhriyaa. yumushagadu waa soft means waa hiding. hadda waxaan soo aragnay nin magaciisa olu ay ku jirto. olun waa cunug yar ama wiil waaye. xarafkaas waxaa laga wadaa laguma dhawaaqo mana weligaa ma arki doontid xarafkan yumushagada. xarafka yumushagada weligaa ma arki doontid iyada oo xaraf ka bilaabanayo ilaa inay dhexda ku jirto ama xaraf ka horeeya shaqal ama shibana wuxuu noqdo. laakiin inta badan shaqala ka horeeya li'annahu markii la rabo in wax lagu dhawaaqo sida ored men macallin waa mujida lagu dhawaaqay oo shaqalan waa odan markii la qoraayo odan waaye iyo geedana isku xigto. laakiin geeda waa la tagayaa yumushaga allaha kulanil mas waaye laguma dhawaaqo. waxaad dhehaysaa marka ayagaa uu ku dhahayo turje kalime kulanilmas bashlan kulanilmas yani ma jiro xaraf oo af turki ah oo ka bilaabanayo yumushage. cashirkeena waxaan rajeynayaa maanta inuu intaas ku eg yahay. cashirada ku xigaan ka hadli doonaa. cashirada ku xiga waa maxay marka cashirka saddexaad waxaan ka hadli doonaa days of the week maalmaha isbuuca. waxaan ka hadli doonaa numbers ilaa iyo 1 milyan. waxaan ka hadli doonaa bilaha oo sanadka. waxaan ka hadli doonaa salaanta iyo isbarashada. waxaan ka codsanaynaa walaal mar labaad iyo mar saddexaad subscribe, like, comment and share please na horumari aan iscaawino waan wada horumarno insha Allah.